waxaa soo dhacday qaybtii sideedaad silsiladii milgo iyo ismaandhaf qaybtan sideedaad wuxuu gantaal culus ka soo fakaday dhanka iyo xaawaleyda fanaanadan cod ka baxsan ee nimca loof ayaa tiri kolkuu miyiga jiray rag iman magaal gabay miisaanle iyo murtiyaab luu lahaa inay dumar murmaan ka mamnuuc bay ahayd erayadan waxay ka soo maaxdeen abwaan jamaal cali firan oo mar labaad kii rag ahaa dambaska ku xaaray abwaankan oo dhinaciisa dhulka la dhigay laayahay ayaa mar kale yidhi labku wuu meedhmayo ma gorfeeyaan masiir macaankiiyo qaraarkaa iskaga milmo haatan macawuuslu kama maarmaan muusiga iyo laxanku waa asaasayaashii silsilada codqabtuu waa deeq mukhtaar cabdi waana howlwadeennada midnimo qaran filimis oo idin leh yaan loo kala tegin weli fare kama qodne mamnuuc bay ahayd kolku miyiga jiray raggu imaan magaal gabay miisaanla iyo murtiyaab luu lahaa inay dumahar murmaanka mamnuuc bay ahayd macaankiiyo qadhaadhka iskaga milmo haatan macaamuslo kama maarmaan xamtana labkuu maydhmayo ma garfeeyaan masiir macaankiiyo qadhaadhka iskaga milmo haatan macaamuslo kama maarmaan xamtana شرف حقيقة ماهورانو حشود صارنا ماذا حصاره حقيقة رجل ماضي وحاتين مقا عيال شرف حقيقة ماهورانو حشود صارنا ماذا حصاره حقيقة رجل ماضي وحاتين مقا عيال hadnayno matano naytalo barna wiilka haween mas'uulka ma ahayn reerku maalku dhanka maamulku ma jirina waa mucjise hadnayno matano naytalo يوم الخابط يقوم مرسنو لكن كيغا معاني عنا كما مرتيو مسلم بانو مصريو دروع إيجابي يوم الخابط يقوم مرسنو لكن كيغا
marna kama martiyo شرف حقيقة ماهورانو حشود سارنا مادها حصاره حقيقة رجل ماضيو وحاتين مقا عيال شرف حقيقة ماهورانو حشود سارنا مادها حصاره حقيقة رجل ماضيو وحاتين مقا عيال